السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxa aan ka hadlayaa qaabka loo daaweeyo madax xanuunka adiga oon qaadan wax la yiraahdo kaniini. Marka dadka badankoodu waxay qaataan kaniiniyaal. Marka kaniinku madax xanuunku muxuu dhibaato u leeyahay? Hadda kaniinkan oo kaleeto dad baa waxay qaataan maalin walba marka uu madaxa xanuuno madax xanuun badan baa qabta. Marka waxaan rabaa qaab oo dabiici ah insha Allah in aan intuso qaabkan aad ujeedaan bini'aadmigu neerfaha wuxuu ku jiraa halkaas ayuu ku jiraa, labada dhagood halkaa hoos ayuu ku jiraa ilaa iyo garbaha. Marka dadka badanaa waxa madaxa xanuuna waa halkan ilaa ka halkaas ilaa labada dhafoor ayaa qofka xanuuna. Marka maxaa keena? Waxa keena waxa waaye waa dhiigga oo mataqaanaa fadhiisto waaye. Marka qaabka madaxa loo qaabkan hadda aan sheegayo hadda ka hor 2009 ayaa waxaan soo geliyay barta aan ku leeyahay Facebook-ayga Jubayare ayaan soo geliyay. waan ka soo hadlay dhakhtar oo maaragtay hadda ka hor sheeko yar waan ka sheekeeyey maamo Soomaaliyeed oo magaalada Columbus Ohio aan ku noolnahay ayaa wadnaha waxa ugu jiray wax la yiraahdo caag baa ugu jiray. Marka turjumaanna waa ahaan jiray xoogaa marka maamadii dhakhtarka u geynay marka uu turjumaayay ayaa waxay ku dhahday waxay tiri eedo waxaan rabaa ay tiri madaxa aad buu xanuunayaa. Marka waxaan u baahanahay wax oo dabiici inaan mataqaanaa dhakhtarka ay u sheegto. Marka dhakhtarkii waa dhakhtar wuxuu ahaa oo Hindiya oo muslim ah. Marka sidii noogu sheegay marka anigana xoogaa arrinkii uu noo sheegan qaatay. Marka maamadii qaabkii baa mataqaanaa kaniinkii ayadoo kaniin qaadanin ayaa waxaa loo mariyay masaajadan arkaysaan. Masaajo walba oo meel walba adduunka ay joogto farmashiye ka soo qaado tan oo kaleeto haddii ay heli kartid tan America taala meel walba ku nooshaa inay farmashiyo waa masaajida loo isticmaalo dhabar xanuunka lafaha murqaha meel walba ku xanuunayo waa ka loo isticmaalo waaye. Marka maxaan rabaa inaan sameeyo? Waxaan rabaa wax yar haddaan inga sheekeeyo kaniinka oo la qaadanayo oo la cunayo marka uu halkan uu galo dhibaatooyin badan ayuu wuxuu ku saameynayaa jirkaaga. Haddii noqoto maxaan ku dhahdaa beerka, keliyaha, wadnahaaga meel walba oo ka mid ah maxaan ku dhahdaa jirkaaga ayuu wuxuu ku saameyn karaa dhibaatooyin. Marka maxaan rabaa inaan ka hortago aan intuso baryahan horta waxaa socda waxa la yiraahdo coronavirus baa socda. marka waxaan rabaa haddii madaxa uu aad ku xanuuno oo qandho ay aad ku qabato adiga oo qaadanaynin kaniini madax xanuuna sidee baan ku daaweyn kartaa without no kaniini? Marka halkan waxa ay yaala waa mawsaxa waa biyo caadiya. halkan waxa ay yaala waa maxaarim ama napkin ama tissues loo yaqaano. marka maxaa sameynaysaa? marka hadda maanta biyo kulul ma sameyn laakiin insha Allah waxaan sameynaysaa tusaale ahaan baa intusaaya waxaad soo qaadanaysaa biyo qandaca oo ku jiro madiibad ama baaquli yar ku jira soo qabsanta biyo yar oo saxankaan oo kaleeta ayaa biyo ku shubanaysaa qandaca. Marka waxaad soo qabsan nadiif waa halkaan ka soo gooyay biyaha markay uu qandacu yahay uu kulul yahay waad soo qabanaysaa biyihii halkan ayaad biyaha marinaysaa. marka biyaha biyo kulul aad mariso ilaa ay halkaas waxaad samayn kartaa qofku iska bixin karaa funaanada. hadda laakiin tusaale ahaan baa intusaaya halkan dhan ayuu biyaha marinayaa. halkaan markuu mariyo kadib aad ka dhigaysaa biyihii kabacdi waxaad soo qabanaysaa masaajada soo qabanaysaa. marka tan waa cream waaye oo masaaje ah oo boomaato ah. marka waa intusaaya. marka waxaad samaynaysaa hadda waxaan rabaa inaan umariyo oo ku mariyo ma aha.
marka okay marka tusaale ahaan hadda in yar baan waxaan rabaa in aan u mariyo marka waa in tusaayada wax yar halkaa biyo baa mariyey marka halkaa biyaha mariso masaajida waaya oo boomaato waaya iyadoo waa heli kartaa iyadoo boomaato ah tan oo kareemka ah iyadoo waxaa jirto oo biyo ah sida jeelka camal oo kale ah iyadoo dhagaxa oo fadhida marka waxaa arigtan noocan aan jeclahay oo fadhido noocan baa aad u fiican waa ujeedaan waa masaajida waaye oo kareemka marka halkaasaa loo marinaya qofka ka u mariso kabacdi la isticmaali kara ilaa iyo markaa seexani sidoo kaleeto markaa aad baxay sidoo kaleeto qaabkan marka muxuu ka hadaa madaxa ku cunaya okay qaabkan marka wuxuu faa'iido wuxuu u leeyahay adiga oon qaadan kaniinka madax xanuunka dhibaatooyin badan ayuu wuxuu ku leeyahay bini-aadmiga keliyahaaga beerkaaga wadnahaaga ayuu wuxuu ku garacmaya marka maxaa nala fiican inaan sameyno waxaa nala fiican waxaa yaroo dabiici ah in aan samaysano oo aan uga hortagno hargabka marka waxaan leeyahay insha allah ha la sameeyo like iyo share iyo hee iyo comment maxaa ku noqon subscribe okay marka waxaan leeyahay hana ka moogaanina hana ka maqnaana marka insha allah waa inoo iyo sidaa baan leeyahay